maanta wax kasta oo sabaroon ad laga sheegayba maanta warkiisu cadeey qof walbana warkaya ciise iyo samaroon haday dabada iska ursan jireenna maanta sanka ayay iska ursan war degdega dawladda sharafta ee ku soo dhawaada halkan waa gunta wararkii ugu dambeeyay ee kaga haya xaaladda galbeedka Soomaaliland beesha ciise iyo samaroon miyay midoobeen oo isku dan miyay noqdeen isla markaana iyagoo duulaanka dowladda Soomaaliland se maxaa jira oo cusub xaaladuse maxaa ka qaldan beesha samaroon se maxaa tahay damceeda iyo si lamid ah ba miyay mar kale doonaysaa ee samaroon isku dayaysaa in ay awdal isteed ay ku dhawaaqdo isla markaana taladii hore beesha ciise ugu diiday in markaa isku dan ay noqdaan iyada iyo samaroonka iyo ciise isla markaana miyay ku soo horjeesan doontaa SNM iyadoo hore ay qorshaha beesha samaroon ay ahayd inay lahaato mid kamid ah dawladaha ugu saameynta badan isla markaana yeelato maamul ka madax banaan Soomaaliland iyadoona ay qorsheenaysay inay noqoto maamul gaar ah isla markaana dhammaan mushaaraadkii iyo wax kasta quseeya maamulkaasi reerka samaroon si guud ah ay u wada baxshaan ciidamada ay yeelan doonto mushaaraadka madaxda wasiirada iyo xubnaha ugu muhiimsan qaadan doono waxay tahay xaaladda ee ka taagan imika Soomaaliland way dhinaca kalena maxay tahay dhibaatada uu samaroon oo kala kulmaya Soomaaliland xilli dhawaan ay u diyaar garoobeyso Soomaaliland in halka ay ka dhacdo 18 May iyo dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay isla markaana loogu dabaaldegi lahaa dhinaca kalena Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah safiir ugu magacaawday Greega iyadoo Greega ay aqbashay arinka tanina waxay muujinaysaa hadalkii Cabdiraxmaan Ciro inuu wadamo badan ay aqoonsan doonaan isla markaana ay doonayaan inay ku sii dhawaadaan oo xiriir dhow ay la yeeshaan Soomaaliland kadib markii Israa'iil aqoonsatay daawadayaasha sharafta leh hadaan ugu cusubteen ugu soo bir subscribe share channelka like gray share gray muuqaalka asxaabta si gaarsii mahadsanid aynu guda galno aqoonsiga Soomaaliland ayaa fooda soo saaran iyadoona si tartiib marbadal oo u sii dhawaanayo inuu aqoonsado isla markaana si ay u noqoto dal ka madax banaan ee Soomaaliya Soomaaliland ayaa wada dadaalo xoogan isla markaana ay qorsheynayso inay noqoto mid kamid ah dalalka ka madax banaan ee Soomaaliya iyadoona ay doonayso inay noqoto mid kamid ah dalalka geeska Afrika ku tiila oo si madax banaan iyadoo iskeeda dadkeeda ay u maamulaan Soomaaliland ayaa dadaalo xoogan gelinaysa sidii ay u heli lahayd marquda aqoonsiga iyadoona xoog ay saarayso sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd dawlad ka madax banaan ee Soomaaliya dawladda Soomaaliland ayaa Greega u magacaawday safiir kaas oo noqon doono safiirkii ugu horeeyay oo dawladda Soomaaliland ay u magacaawday Greega kaas isagoona la sheegay in safiirka halka uu gaari doono waan markii ugu horeysay Greeg loo magacaabay halkaasi iyadoona arinka ay noqon doonto isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka soo saari doonto jawaab kulul maadaama xiisadu faraha ay ka sii baxday oo heer in la magacaabo safiir isla markaana wadamada Yurubiyaanka ay raali ka yihiin ay gaadhaan isla markaana iyagoo aysan ilaalinayn xiriirka iyo si lamid ahba ilaalinta madax banaanida qarneed ee Soomaaliya oo kala dhaxeeyo dhinaca kalena beesha samaroon ayaa iyaduna wax ka tabanaysa maamulka Soomaaliland gaar ahaan reerka Isaaqa oo imika waana reerka ugu xooga badan ee xagga maamulka ee dowladnimada marka la yiraahdo waana reerahan Isaaqa SNM isla markaana ay gacanta ay ku hayaan ayaa samaroonka ka cabanayay beesha samaroon ayaa isla markaan mid kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliland sheegay ciisaha iyo samaroonka inay yihiin dad isku dana iyadoo xilligan maalmihii la soo dhaafay ay jireen xiisado aad u kulul isla markaana ay u dhaxaysay beesha ciise iyo si lamid ah Soomaaliland inkastoo ay qafiiftay arinkii u dhaxaysay samaroonka iyo ciise haddana warar hoosaada la sheegaya ayaa soo baxaya tibaaxaya ayaa sheegaya in beesha samaroon iyo ciisaha ay markaan dan wadaag yihiin isla markaana isku dan yihiin laakiin cidda danta loo leeyahayna ay tahay beesha Isaaq oo gacanta ku hayso ee Soomaaliland xiisad culus ayaa halka ka dhalanaysa isla markaana dhaqdhaqaaq kasta ayaa ka soo kordhi kara iyadoona xaggaasi isla markaana ay noqon doonto tallaabo kale oo casri ah waxaase cabsi laga qabaa in beesha samaroon iyo si lamid ah ciisaha ay madoobaan maadaama marka la sheegay inay soo cusboonaatay xiisadii ahayd in beesha samaroon ay yeelato maamul iyadoo isla markaana ka madax banaan ee kan dowladda ee Soomaaliland isla markaana ay doonayso inay yeelato maamul gaar ah kuwaas oo la sheegay in xitaa samaroon ay horey diyaar uga ahayd inay aasaasato awdal iseed
isla markaana ay noqoto maamul goboleed sidoo kalena ay doonaysay in dhammaan mushaaraadka iyo qarashaadka ku baxaya iyadoo iska baxsato reerka samaroonna ay ka noqdaan cidda mas-uula ay noqdaan iyagoona ay doonayeen inay ka hoos baxaan maamulka SNM. horta wax kasta oo samaroon ad laga sheegayaba maanta warkiisu cadeeyay qof walbana uu arkaya ciise iyo samaroon hadday dabada iska ursan jireenna maanta sanka ayay iska ursanayaan hadday awal kala dan ahaayeenna maanta waa isku dan oo isku dooni ayay saaran yihiin hadday isaaq jeclaayeen oo tunka ku siteenna horta wax kasta oo samaroon ad laga sheegayaba maanta warkiisu cadeeyay qof walbana uu arkaya ciise iyo samaroon hadday dabada iska ursan jireenna maanta sanka ayay iska ursanayaan hadday awal kala dan ahaayeenna maanta waa isku dan oo isku dooni ayay saaran yihiin hadday isaaq jeclaayeen oo tunka ku siteenna ayaa samaroonka ka cabanayay beesha samaroon ayaa isla markaan mid ka mid ah aqoon-yahanada Somaliland sheegay ciisaha iyo samaroonka inay yihiin dad isku dana iyadoo xilligan maalmihii la soo dhaafay ay jireen xiisado aad u kulul isla markaana ay u dhaxaysay beesha ciise iyo si lamid ahba Somaliland inkastoo ay qafiiftay arrinkii u dhaxaysay samaroonka iyo ciisaha haddana warar hoosaada la sheegaya ayaa soo baxaya tibaaxaya ayaa sheegaya in beesha samaroon iyo ciisaha ay markaan dan wadaag yihiin isla markaana isku dan yihiin laakiin cidda danta loo leeyahayna ay tahay beesha isaaq oo gacanta ku hayso ee Somaliland xiisad culus ayaa halkaa ka dhalanaysa isla markaana dhaqdhaqaaq kasta ayaa ka soo kordhi kara iyadoona xaggaasi isla markaana ay noqon doonto tallaabo kale oo casri ah waxaase cabsi laga qabaa in beesha samaroon iyo si lamid ah ciisaha ay madoobaan maadaama marka la sheegay inay soo cusboonaatay xiisadii ahayd in beesha samaroon ay yeelato maamul iyadoo isla markaana ka madax banaan ee kan dowladda ee Somaliland isla markaana ay doonayso inay yeelato maamul gaar ah kuwaasoo la sheegay in xitaa samaroon ay horey diyaar uga ahayd inay aasaasato Obdal Ised isla markaana ay noqoto maamul goboleed sidoo kalena ay doonaysay in dhammaan mushaaraadka iyo qarashaadka ku baxaya iyadoo iska baxsato reerka samaroonna ay ka noqdaan cidda mas-uula ay noqdaan iyagoona ay doonayeen inay ka hoos baxaan maamulka SNM. horta wax kasta oo samaroon ad laga sheegayaba maanta warkiisu cadeeyay qof walbana uu arkaya ciise iyo samaroon hadday dabada iska ursan jireenna maanta sanka ayay iska ursanayaan hadday awal kala dan ahaayeenna maanta waa isku dan oo isku dooni ayay saaran yihiin hadday isaaq jeclaayeen oo tunka ku siteenna odayaasha sharafta leh hadaan ugu cusubtay nagu soo bir subscribe saar channelka like gray share gray muuqaalka asxaabta si gaarsiin mahadsanid aynu guda galno aqoonsiga Somaliland ayaa fooda soo saaran iyadoona si tartiib marbadal oo u sii dhawaanayo inuu aqoonsado isla markaana si ay u noqoto dal ka madax banaan ee Soomaaliya Somaliland ayaa wada dadaalo xoogan isla markaana ay qorsheynayso inay noqoto mid ka mid ah dalalka ka madax banaan ee Soomaaliya iyadoona ay doonayso inay noqoto mid ka mid ah dalalka geeska Afrika ku tiila oo si madax banaan iyadoo iskeeda dadkeeda ay u maamulaan Somaliland ayaa dadaalo xoogan gelinaysa sidii ay u heli lahayd marquda aqoonsiga iyadoona xooga ay saarayso sidii Somaliland ay u noqon lahayd dawlad ka madax banaan ee Soomaaliya dowladda Somaliland ayaa Greega u magacaawday safiir kaas oo noqon doono safiirkii ugu horeeyay oo dowladda Somaliland ay u magacaawday Greega kaas isagoona la sheegay in safiirka halkaa uu gaari doono waan markii ugu horeysay ee Greeg loo magacaabay halkaasi iyadoona arrinka ay noqon doonto isla markaana dowladda Soomaaliya ay ka soo saari doonto jawaab kulul maadaama xiisadu faraha ay ka sii baxday oo heer in la magacaabo safiir isla markaana wadamada Yurubiyaanka ay raali ka yihiin ay gaadhaan isla markaana iyagoo aysan ilaalinayn xiriirka iyo si lamid ahba ilaalinta madax banaanida qarneed ee Soomaaliya oo kala dhaxeeyo waaya dhinaca kalena beesha samaroon ayaa iyaduna wax ka tabanaysa maamulka Somaliland gaar ahaan reerka isaaqa oo imika waana reerka ugu xooga badan ee xagga maamulka ee dowladnimada marka la yiraahdo waana reerahan isaaqa SNM isla markaana ay gacanta ay ku